السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان جنال كان منير مرسي صاحبه ku xiran soo dhawaad saaxiibayaal saaxiibo kaliya ay matihiin waxaa tihiin family Munir Mercy team Munir Mercy soo dhawaad saaxiibayaal muuqaal cusub maalin cusub waxaan rajeynayaa inaad faraxsan tihiin oo noloshiina ay tahay mid bashbashi barwaaqo ku sugan alxamdulillah ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa midaas waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo mowduuc aad u muhiim ah oo u arkay inuu idin anfici doono أنا عن إسلام هاي فرينتاس جودبي أو هاي سنين موضوع وحنا قلنا يا صاحبي يال مدوني سا إن جورجا وصنصوق جلين شيطان وأكتين شيطان كا وعدو أوهري أمضى مسلمين تا أمضى إسلام كا قف كستو مؤمن عدو أوهري أوليه وشيطان قيس كستو مسلم ومؤمن وإلهي رسول كيسي ما أنت قيام رميسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل qoyskaas cadawga ugu horeey ay leeyihiin waa shaydaan dunidan muslimiinta ku nool waxa ugu badan ee ilaahayooda ka mashquuliya ilaahayooda u diiday inay si toos u caabudaan oo dhinac walba ka soo mara waa shaydaan ninka ilaahay amarkiisa diiday ee la nacladay ee laga soo iriyay jannada waa shaydaan waa mid ilaahay uu lacnaday kana soo buriyay jannada waa ibliis لعنة الله عليه runtii waxaad ogtihiin ninkaas ama shaydaankaas laciinka ibliis la yiraahdo iyo inta ku xiranba oo asaga wadadiisa hayaan waa kuwa anaga cadow nagu hadii aan nahay muslimiin runtii marka maadaama shakhsiyan cadow aan leenahay uu yahay shaydaan qoys ahaan cadowga muslimiinta uu yahay shaydaan ibliis sidoo kale ummadda muslimka guud ahaan gaar ahaan ummadda nabi maxamed si guud ahaan cadawga ay leeyihiin ay la dagaalayaan waa shaydaan waa qofka ka soo jeeda ka soo horjeeda ama diiday amarka ilaahay waa midka ku balan ilaahay hortiisa ku balan furay ama ku balan qaaday in ummadda ilaahay u diidi doono inay wadada toosan qaadaan saas darteed marka ninkaas waxa anagana la amray inaan ninkaas cadawga cad ee ilaahay uu ku tilmaamay waa cadow aad inna shaytaana lakum caduwwan fattakhiduhu caduwwa shaydaan waa cadow ka yeesha ee caduwwu mubiinna aayadaha qaar ay leeyihiin ninkaas waxaa la rabaa inaan la dagaalanno oo mar walba aan falkeeda galno sidii ninkaas aan ugu hor imaan lahayn u diidi lahayn amarkiisa oon u raaci lahayn amarka ilaahay subxaanahu watacaala shaydaan marka sideen ugu guulaysanaa موضوع هره أوصي قلنا صاحبي قال ما دونيسا إن جورجا وصن صاق قال الشيطان وحين الشيء يا صورة قرآن كم ذا أو النبي عليه الصلاة والسلام نوشة هدي أن جورجا نكو آخرنا إن وصن شيطان جورجا نسوق قالين وكفوا جانا أيو تاسنا وبلنتي إلهي أما النبي صلى الله عليه وسلم سيدا ونوشة جاي محل النبي صلى الله عليه وسلم ويراد وحي إلهي حق سكيميت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى marka ma doonaysaa in gurigaaga uusan soo galin shaydaan haddii gurigaaga uu ka fogaado shaydaan haddii uusan gurigaaga joogin haddii shaydaan uusan gurigaaga soo galin uu ka maqan yahay waxaad ogaataa in wanaag kasta khayr kasta uu gurigaaga joogo ama xumaan iyo shar dhibaato kasta ay gurigaaga ka maqan tahay haddii shaydaan gurigaaga uusan soo galin uu ka maqan yahay oo aad akhrisay suuradan aan idin sheegi doono waxaad ogaataa in malaa'igtu ay guriyihiina soo camirayso ماشي ملائكة أي جوكتنا واحد جوكته نحريس إيو وناك إيه خير دمانتيس أي جوكه هدي مركز صورة أتكو أخرسان قريهنا أو أي يعني وشيطان قريهنا كعررو وحا أغاتان إن وح وناكسن أو خير بدن مروا بقى كفلسان المهاجة هذيك نفط هذا وح والبا عاجزكي عليسكي والولكي والبهاركي عليه اسكو دعاي لو ذي عرورت هذا اسكو دعاي أما سقف سنهاي wax walba oo shar oo guriga ka dhici lahaa way ka fogaanayaan maxaa yeelay waxa ka maqan gurigaas shaydaan oo ahaa midka dhibaatooyinka badana ka dhex sababa qoysaska oo isku dira dadka isjecel ninii naagtiisa wiili walaalkiisa hooyo iyo gabadheeda qof walba oo markaas guriga ku jiro ama jooga ayuu ku qasbi jiray ama isku diri jiray asagoo marka shaydaanku ujeedadiisu ay tahay inay isku dhacaan oo ay kala go'aan dadkaas xigtada is dhalay ama isla dhashay ee wanaaga iyo qaraabanimada iyo riximka uu ka dhaxeeyo marka shaydaanku mar walba hadii gurigaaga uu joogo waxa uu sameeynayo ma wax wanaagsan kaliya wuxuu mar walba ka shaqeynayaa kala fogeynta reerka isku dirka iyo inuu mar walba familkaas uu sababo waxyaabo xumaan ah inay isku dhacaan
ama in cudurro iyo dhibaatooyin ay usoo jiido. marka haddii marka shaydaanku guriga uu ka maqan yahay, wuxuu noqonayaa gurigaas guri wanaagsan oo salaadu laga tukado, oo cibaadada laga ogo, oo ilaahay naxariistiisu ay kusoo degto, oo mar walba wuxuu noqonayaa guri barakaysan oo ka duwan guryaha kale. marka suuraddan oo aan idin sheegi doono nabiga sal slamna aan kasoo warinayo waxay noqonaysaa waa suuratulbaqara. suuratulbaqara waa suuradda ugu horeysa qur-aanka, suuradda ku xigta, suuradda ugu weyn, suuradda ay ku jirto aayadda ugu weyn qur-aanka, suuradda ay ku jirto aayadda ugu weyn ee qur-aanka, aayadda ugu dheer ee qur-aanka, aayatudayn iyo aayadda ugu weyn ee qur-aanka, aayatulkursiy, suurad ay ku jiraan aayadaha ugu dambeeya oo aayado fadli badan ah, ay fadli badan leh oo aad ajar badan looga helo oo wanaag badan uu nabiga sal slam ku sheegay. marka suuraddan suuratulbaqara haddii aad ku akhriso gurigaaga, shaydaan wuu ka fogaanayaa, wuu ka ordayaa, wuu ka cararayaa, uma soo dhowaanayo. haddii uu shaydaan ka fogaado uu ka dheeraadana, gurigaas waxaa soo camiraya oo soo u imaanayo malaa'igtii, oo marka malaa'ig meeshay joogtana naxariis iyo wanaag iyo khayr ayaa isugu imaanayo. shaydaan meeshay uu ka cararana, wixii dhibaato iyo xumaan iyo isku dir iyo walwal iyo murug iyo caafimaad darana way ka cararayaan. taasna gurigaas qoyskaasi muslimka ah wuxuu noqonayaa qoys barakaysan oo barakoobay, kuna barakoobay qur-aankaasi lagu akhriyey, gaar ahaan suuratulbaqara. maadaama suuratulbaqara ay aad u weyn tahay oo aad u dheer tahay, fadli badan ayay leedahay. waxaa la rabaa marka qoyskaas in ay ku akhriyaan guryahooda, qoysaska Soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay guryahooda ku akhriyaan suuratulbaqara, ku dulqaataan inta yar, ugu yaraan 30 daqiiqo qaadanaysaa. laakiin waxaa gurigaas ka cararayo faa'iido laga helayo waxay tahay shaydaan ayaa guriga ka cararayo. taasna wanaag ay u noqonaysaa qoyska, oo ilaahay baa barakeynayo, naxariis iyo wanaag ayaa meeshaas kusoo degayso. shaydaankii iyo dhibaatadiisii iyo lacnadiisii wixiisana way ka fogaanayaan. xadiis Abu Hurayra radiyallahu anhu uu warinayo, nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay: laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ina ashayطaana yanfiru min albayt alladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara. nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay guryihiina ha ka yeelina qubuuryaalo, qabriyaal ha ka yeelina. maxaa yeelay shaydaanka wuu ka cararaa guriga lagu aqriyo suuratulbaqara. nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu ka dhigay uu tusaale ahaan usoo qaatay guriga aan suuratulbaqara lagu akhrinin sida guri qabri ah oo mugdi ah oo dhibaato kasta ay macnaha dhex taalo ama cabsi oo kale ah. macnaha qabriga waa ogtihiin meel wanaagsan ma aha, waa meel mugdi ah oo dhibaato oo cariiri ah. marka saas oo kale ayuu kasoo qaaday guriga aan lagu akhrinin suuratulbaqara. marka wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu salaam guryihiina ha ka yeelina qubuuryaalo ama qabriyaalo, maxaa yeelay shaydaanka wuu ka cararaa guriga lagu akriyo suuratulbaqara. marka suuratulbaqara haddii aad guryihiina ku akrisaan oon guryaheena ku akrino, wuxuu noqonayaa guryaheena ama waxay noqonayaan guryaheena guryo qurux badan oo wanaagsan oo naxariistu iyo wanaaga iyo khayrka iyo cibaadada lagu camiro. marka insha Allah aan ku akrino guryaheena suuratulbaqara biidhnillaahi. ilaahay baa shaydaanka naga burinayo, shaydaanna meeshaas muba joogayo uu ka cararayaa, malaa'igtana way imaanaysaa oo meel wuxuu noqonayaa guryaheena naxariistu ay timaado oo wanaagu uu dhex yaalo. insha Allah waxaan rajaynayaa inaan muuqaalkan halkan kusoo gabagabeeyo, idinkan aad ka faa'iidaysateen. aad ugu mahadsantihiin muuqaalka daawashadiisa. fadlan muuqaalka like saara si dad badan u gaaro, sidoo kale u share gareeya asxaabtiina si ay ugu faa'iidaystaan guryo badan oo aan lagu akhrin suuratulbaqara sida qabuuryaal oo kale waay. marka si muuqaalkan loogu faa'iidaysto oo guryaha walaalaheen qoysaskeena loogu akhriyo suuratulbaqara, muuqaalka u share gareeya asxaabtiina. aad u mahadsantihiin. haddii weli aad channelka subscribe garaysanina, subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan soo gelin doono. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada.